waxaan kaga hadlay ma bull market baan kusii jirana weli mise bear market ayaa inoo bilaabmi doona. xaqiiqatan sida aad sawirka kaga aragtaan thumbnailka waxay u badantay suuqu inuu galo marxalad ah bear market amba soo daato. taana sababta ugu horeysa waxaa ka mid a hukuumadda waddanka Mareykanka oo doonaysa inay iska iibiso 8,200 oo bitcoin taas oo ay ka xireen website-kii caanka ahaa ee waxyaabaha illegalka ah ku shaqayn jiray haday tahay drugska iyo waxyaabaha lamida. website-ka markay xireen tirada bitcoin-ka ah ay ka xireen, iminkana waxay doonayaan inay ku soo daadiyaan suuqa cryptocurrency-ga. arrintaasna hadday dhacdo dabcan waqtiga ay ku soo daadinayaan lama garanayo, goorta iska iibinayaan lama garanayo, laakiin hadday ku soo daadiyaan suuqa waa arrin saameyn karta bitcoin-ka iyo altcoins-ka guud ahaan. chartkan waxaan ku arkaynaa Federal Bank amba banka dhexe waddanka Mareykanka inuu iska iibinayo hantida uu haysto portfoliohiisa ku jirta. marka muddada soo socota waxyaabo fara badan oo assetkooda ka mid ah iska iibiyaan ayaa suurtagala, maadaama marxalad aynu ku jirna ah quantitative tightening amba ah in suuqa cunaha lagu dhego oo lacagta suuqa